halkani waa MCH-ka deegaanka Samakaab ee gobolka Sool waxa dhawaan laga hirgeliyay goob caafimaad oo dadka deegaanku ay aad ugu baahnayeen waxa halkaasi qayb weyn ka qaatay qalabaynta iyo dib u habeynta MCH-kaasi hablaha beesha Samakaab ee jaaliyadaasi iyaguna halkaasi qalabyo kala duwan soo gaarsiiyay ugu horeyn Maxamed Jaamac ayaa ka walbixiyay qalabka la keenay wuxuuna u mahad celiyay hablaha jaaliyada ee qalabkan soo gaarsiiyay wuxuuna sheegay in markii ugu horeysay qalabayn la qalabeeyay MCH-ka hadday tahay sariirihii dhalmada hadday tahay sariirihii bukaan-jiifka hadday tahay solarka hadday ay tahay qalabkii raacay loo baahnaa wixii hadda la awooday ee halkan ka yaala oo ay ka mid yihiin miisaankii kii ilmaha lagaga soo xabka iyo lagaga soo saaraya ama naqaska haddii uu labadaas mid yimaado oo kartoonkiisa kan yahay alaabta halkaa taallaa kirhkii maqasyada kuwii tolliinka wax lagu toliyey kuwii kii lagu cabarayay dhiigga oo kana ah qalabadaas iyo kuwa idin soo sheegay oo ay ka mid tahay talaagadii lagu gurayey wixii dawada loo baahdo in ay looga baahdo qabow looga baahdo loo gurayey waxaa qalabeeyey gabdho qaar Allah siiyo qurbaha jooga marka waxaan rabnaa inaan gabdhaha u mahad celino qalabkiina aan cadeyno inuu meesha yaalo dadka deegaanka ayaa u mahad celiyay hablaha soo qalabiyay MCH-ka ee jaaliyada reer Samakaab waxayna sheegeen in baahiyo ay tiro badan yihiin awoowayaal waxaan idiin sheegayaa qalabka la soo tiriyay ee caafimaadka nolol ku keenay waanu qabanay gacantaanu ku haynaa horta iyadu yaala hadduu yaalana wixii naga dhiman waa idinku mahad celinaynaa wixii naga dhimanna inaad noo keentaan oo noogu soo dartaan oo waraysiga idan naga joojin baanu codsanaynaa aad iyo aad baanu idinka codsanaynaa taa waxa ii raaca oo kale baahidu way iska fara badan tahay meeshan Afrika la yiraahdaa magaaladuna kor bay u socotaa waxa aad iyo aad u soo badanaya de kulli meesha mujtamac ku bato tarantiisuna waa ku badataa inaad maartay dhakhtarka noo xoogaysaan inaydan baahiyo waa fara badan yihiin inaydan marba sida maartay baahidu tahay aad ula socotaan wada salaamaya dhamaanba gabdhihii qalabka keenay iyo inta niyada ku haysa ee damacsan inay wax soo tartay MCH-kan tuula Samakaab ishtaas salaanta islaamka ku salaamaya salaanta bidcana boqolkiiba boqol baan salaamaya qalabka laga soo sheekiyay waanu haynaa waanu soo gaaray waanu idinka gudoominay ilaahayna miisaanka xasanaadka haydin saaro qalabkaas ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu miisaanka xasanaadka aakhiro idin saaro qalabka boqolkiiba boqol waanu idinka gudoominay baahi fara badan daboolaya meesha waxaad meel bilow oo ma garanaysaa guri un baa dhisnaa markay qalab lagu shaqeeyaa ma ahol maanta macnaha waa meel shaqo galaysa wax badan oo gudihiisa laga shaqeeyaa ayaa u baahan yahay laakiin wuxuu ka wanaagsan yahay sidii uu ahaa magaalada hadda waa magaalo cusbitaal qofkii xanuunsanaya lagula soo cararo ayay leedahay aad baan idinku mahad celinayaa dhammaantiinba kuwii hore iyo kuwa dambaba waad aragtaan oo sawirkiisa waad aragtaan waxaan u malaynayaa in uu ku yaala 7 suuli 6 qol 5 qol amiin 5 qol farmashi oo mid farmashi yahay umulasadii hadday tahay meeshii cusbitaalka shaybaarkii meeshii dadka la jiifinayay xanuunsanaya intuba way dhisan yihiin meeshan maanta joogno waxa weeye MCH-ka tuula Samakaab salaam ya dhamaan dadka kuwa maqan iyo kuwa joogaba marti sharafta miidiyaha dhamaantiin waan salaamaya waxaan ahay Caasha Ismaaciil Baaruud oo team leaderka MCH-ka wuxuu ka kooban yahay 5 qol qol farmasiya 2 qol oo inpatient ah qol store iyo qol delivery iyo wuxuu kale u leeyahay 6 suuli iyo taagiga biyaha intaba marka ma sha Allah maanta waxa la keenay muxuu ahaa alaabtan ay gabdhuhu nagu soo caawiyeen oo inoo keeneen oo 3 sariir oo inpatient ah iyo 2 sariir oo delivery ah iyo qalab yar oo shaybaarey waxaas aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxyaalahan meesha ay gabdhuhu qabteen ee nala tusay runtii maalintii meesha la dhigdhigay waan joogay
waxa la yiri gabdhaha waxa soo dhigdhigay laakiin anigu waxaan u maleynayay inay hay'ad iyo waxaas ay meesha soo dhigeen aad iyo aad alaab loogu baahan yahay oo aad iyo aad ay loogu baahan yahay baad keenteen boqolkiiba boqol baan idinku mahadnaqaynaa waanu idinka gudoonay maalintii la dhigdhigay waan joogay haddana waan joogaa runtii ilaa hadda maxamed jaamac uu alaabtii gabdhihii xaadiriyey wax dawlad iyo hay'ad weyn soo dhigtay un baan moodayay marka boqolkiiba boqol baan idinkaga mahadnaqaynaa arrinta iyada waxa nooga horeeyay oo gabdho noo dhiseen oo magaalada nooga dhiseen masaajid weyn oo aad iyo aad u ballaaran oo gabdho iyana noo dhiseen aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa hal gabadhaan aad baan ugu ducaynaynaa haweeye roobeeye weeye tii iyadana masaajidka noo dhistay masaajid weyn oo masaajid gobol oo kala ah bay noo dhistay allah barakeeyo idinka gabdhahoo dhan allah idin barakeeyo waa idin ducaynayaa ilaahay hadalna waa dhammaaday halkani waa magaalo cusub wax walba baahidiisu waa badan tahay waxyaalo badan oo loo doonan jiray gobollada oo loo doonan jiray laascaanood bay halkan naga kaafido naga celisay aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa mukhtaar cabdi jaamac laascaanood